mar labaad waan islaamay qaalidow waxaan korgey rabaa Sayid Cali maadaama asaga hadlaa korgey waxaan rabaa horta marka koowaad inaan mataqaanaa kiiskan laga hadlayo oo ah kiiska doontii Sayid Cali inaan maanta mataqaanaa aan bilaabno min alif ilaa ya saa sheegtana ajiibo dee wixii su'aalaha mataqaanaa dadku qabaan waxaan diyaar u nahay cawada inaan meesha uga jawaabno marka waxaan ka bilaabaynaa taariikhdii aan soo galay aniga dalka Algeria iyo maalinka aan ka baxnay iyo sidii wax u dhaceen intaba ayaan ka bilaabaynaa marka waxaa soo galay dalka Algeria waliba qaasatan caasimadda Algeria ee Algiers 28 bishii koowaad 2025 ayaan soo galay marka waa bishii koowaad dabayaaqadeedii 28 ayaan soo galay markaan soo galnay waxaan ahayn safarka habeenkaas waxaan ahayn 6 qof ayaan ahayn oo aniga iyo 3 wiil kaleeto iyo 2 gabdhood adiga hal mar Sayid Cali iga raali noqo sheekada intaada bilaabin sharciga aan nilownay oo run waa mahadsantiin reer community saad noo xasuusiseen qaalidow inaad dhaarisaan codsan lahaa okay waa run waa ilaaway Sayid Cali saaxiib waxaan kugu dhaarin doonaa saddexda magac ilaahay waxaan ku dhaaran doontaa inaadan wixii aan ku weydiino iyo wixii aad og tahay iyo wixii faamilada ku weydiiyaan iyo wixii guddiga ku weydiiyo aadan been ka sheegi doonin ayaan kugu dhaarinaynaa wixii kaloo aad og tahay oo informationan aada qarin doonin ma kugu wallaahibaa ma kugu bilaahibaa ma kugu tallaahibaa in kayskan waxaad ka og tahay aadan qarin doonin waxaad gashay aadan qarin doonin su-aal lagu weydiiyana aadan been ka sheegi doonin wixii information aad arrinkan ka og tahayna aadan ka leexan doonin runta aad sheegi doontid waa igu wallaahi waa igu billaahi waa igu tallaahi in wixii meeshaas ka dhacay oo doonta hadday noqoto Algeria hadday noqoto xilligii xooshka wax walba oo nagu dhacay inaan runta ka sheego waa igu billaahi waa igu tallaahi waana igu wallaahi su-aal lagu weydiiyeyna aadan been ka sheegin su-aal lagu weydiiyeyna been aanan ka sheegin okay ku soo cajiiba hawshaada marka asaa watay soma hadalka Sayid sheekadaha ka sheekay wax walba oo dhageysanaya nooga sheekay Sayid marka waxaan soo galay saa inii sheegay Algeria 28 bishii koowaad oo mataqaanaa dhammaad maraysa ayaan soo galay 2025 marka sida aad wada ogsoontihiin Algeria markii aad timaado oo qof cusub aad tahay waxaad raadinaysaa berigaas 28 January ama sanadkii cusbay oo 2025 bishii koowaad ilaa bishii labaad Soomaalida waxay ku badneed meel la yiraahdo Benimsus la yiraahdo oo hoteelo oo mataqaanaa ka dhisnaayeen iyo meel apartment oo nin Carabi ku kari jiray hoteelada meesha ugu caansanaa waxaa ka mid ah Hotel Chomana iyo Hotel Royal oo meesha ugu badan ay Soomaalida ay degneed ay ahayd marka sidii la mid ah habeen ayaa nala keenay oo gaariga taxiga ahay ayaa na keenay Hotel Chomana hortiisa gaar ahaan derbiga isbitaalka Mustashfa Benimsus reer Algeria u garan ugu yihiin marka habeenkii xilli dambe ahayd waa 8 saac habeenimo ahayd marka 8 saac habeenimo markan la keenay waa dareemi kartaa hoteeladii iyo wixii dhan wax xiran yihiin dad soo jeedana xilliga ma jirin dad qof kasta maadaama xilli qaboobiyo lagu jiro bishii koowaad 28 ilaa bishii labaad waa xilli iska qaboobiya sida Algeria dadka u yaqaanaan marka xilliga markaan soo galnay waxay dantana biday inaan luuqa ka gadaaleeya Hotel Chomana Hotel Royal meelahaas inaan mataqaanaa waqtigeena habeenimo ku sii dhameysano subaxii markii la gaarana aan raadsanay meeshii hooy noo noqon lahayd oo ah hoteelada Soomaalida ay ku badan yihiin sida caadiga ah Soomaalidu markii meesha joogaan qof cusub markii waa la soo dhaweeyaa meel waxba la raadiyaa Soomaalidu dadku mataqaanaa waa soo dhaweeyaa marka waxa weeye waa maalinkii sidii aan mataqaanaa lagu Soomaalida joogno Sayid Cali waxay leeyahay codka uu gaaban yahay uu liitaa dadka kor buu qaadi kartaa in yar walaalo okay marka tabtii aan loo soo dhaweeyay Soomaalidii marka sidii aan waxaan ku raadinay hotel aan degno laakiin wiilasheeni maan helin laakiin gabdhihina la socday waxay heleen Hotel Chomana laba boos ka heleen maadaama laba gabdhood ay ahaayeen marka anagana waxaan mataqaanaa cariirsanay dhalinyaro si Algeria dadka Algeria way yaqaanaan Hotel Chomana geeskiisa waxa ku taala dabaq apartment ah oo dhalinyarta ay jiifa jirtay oo nin Carab ah oo kare jiray marka
meeshii ama taqaanaa dhalinyaro joogta ama meesha la ciriirsanay ninkii carabka lacag naga qaatay habeenkiina meeshii aan la ciriirsanay dhalinyartii markii aan meeshii ciriirsanay iska joognay oo isbuucii aan joognay oo bishii labaad la gudagalay Soomaalida way dareemi kartaa dalku waxa u timaada dalxiis Soomaali imaan taariiba u timaaday markaasaan waxaan raadinay qaabkii lagu bixi lahay muujadii meel cusub markaa timaadina dadka si u dhaqmayaan oo u dhaqmaysa tabtii oo kala sameeyna anagana dadkii dhalinyarta naga soo horeysay wixii aan raadinay qaabkii ugu bixi lahayn meesha marka xilligaas waxa ka jiray tiiman badan ayaa mataqaanaa aan meesha ka jiray oo waliba tiim mataqaanaa shurda ah shurda waa dareemi karaan waa tiim marar badan bad laga soo qabtay ama hal mar ama laba mar la soo qabtay iyo tiiman cusub oo markaas mataqaanaa la asaasay oo xooshaska ku jira iyo kuwa kale oo banaanka joogo oo hoteelada jooga marka anagana tabtii oo kala sameeynay waxaan raadsanay group aan galno laakiin waan weynay maadaama dadku aad iyo aad u tiro badnaayeen waqtiga oo Soomaalidu markii Algeria ay ku soo jabtay ee aad Soomaalidu u tiro badneed marka groupkii ama wuxuu noqday group mataqaanaa si sahal mataqaanaa lagu helin inaad mataqaanaa leader raadisid ama mataqaanaa raggii meesha u xil saarnaa inaad raadisid oo aad mataqaanaa group igu dar dhahdid aad bay u adkaatay marka anaga waxaan sameeynay maadaama 6 qof dhalinyaro 6 qof aan ahayn waxaan sameeynay inaan macnaha qof walba iska xil saarto sidaan group ku heli lahayn anagoo 60 qof ah numberadeenna wixiina mataqaanaa raadinay marka qofku markuu Algeria ku cusub yahay xilliga waxa la sameyn jiray waxaa jiray nin doomanka u qaabilsanay oo ninka carabka la shaqeey jiray iyo nin kale to asaga ninka kale la sii shaqeeyo oo xoos u qaabilsan ninka koowaad ku hormaro ninka koowaad waxa la dhigi jiray Qaasim al dhigi jiray waa ninka oo mataqaanaa ninka carabka lacagta u qabta iyo ninka labaad oo mataqaanaa Qaasim la shaqeynayo oo xoos u joogana magaciisa waxa la dhahaa Muuse al dhanin Muuse la dhaho oo xoos haya ahay Algeria badi waa wada yaqaanaan dadkii hore way yaqaanaan dadka dambana halkaas aan u faahno Qaasimka hadda sheekadu marayso laba Qaasim baa jira manikana aad kan marka hadda dhulka maraysa Qaasimka carabka lacagta u qaban jiray waa kan miya Qaasimka oo Algeria marka caasimadda Algeria imaatid ninka carabka u qabanayo waa ninka Qaasim baa la dhahaa Algeria way yaqaanaan okay ku socod marka ninka labaadna waa san ku sheegay Muuse la dhahaa xooskaas ku shaqeeya Qaasim oo la shaqeynaya ninka odaga marka anaga wixii aan ugu adkaaday marka rabtid inaad group ku biirtid ama group cusub la asaasay ku biirtid waxa waajib ah ama inaad Qaasim wacdid ama inaad mataqaanaa Muuse wacdid marka anaga labadii meel waa wacnay Qaasimkii taleefankiisa waa noo gali waayay Qaasim xilliga mataqaanaa si lagu helaa aad iyo aad u adkeed marka waxa noo mataqaanaa saa u raadinayno waxa mar dambe helnay ninkii odaga ahay oo magaciisa la yiraahdo Muuse oo xooska hayaha ahay Muuse xitaa dib nagu noqdo anaga oo mataqaanaa teamkii mataqaanaa oo aad iyo dadkii mataqaanaa ugu bateen oo waad dareemi kartaa in xoos hayo aad loo soo wacayo xilli habeen xitaa inaa u dhafartida noqotay habeen badan ugu dhafarnay laakiin markii dambeeto gabar anaga naga mid ahayd ayuu mataqaanaa tayf ka qabtay habeenkiina u sheegtay 6 qof inaan nahnay oo isla socona sidii oo mataqaanaa numberadeen ku qaaday sidii ayuu mataqaanaa group cusub u sameeyay groupkii anagu mataqaanaa iska dhax aragnay oo sida loogu soo daray marka maadaama 6 qof groupka lagu bilaabo anaga ahayn waxa lagu soo daray dhalinyaro kale ta lagu soo daray markaas aan is aqoon aniga marka siid ahaan marka maadaama dhalinyarta asxaabteeda aan socday sidii marka waxaan ku noqday group leader-ka oo meesha oo group leader ma ku dhahay laakiin waxa asxaabta saaxiibadeyda 6 qof qofkii u hadlayay inaan ahay markii dambe ninkii oo soo hadlay oo Muuse ahay maadaama groupkii la soo buuxiyay 18 dad kale lagu sii wada daray dadku inay isbartaan waajib waxa ah marka Muuse sida dhahay isbarta adinka isbarta sayid mataqaanaa adiga mataqaanaa leader meesha magaciisa meesha lagu qoray oo maadaama asxaabteeda hore aan u hadli jiray aniga magacayga sayid team sayid meeshaas ku baxay oo team sayid ayaa meesha lagu aasaasay asxaabtii kale dadkii kale taa la isku bartay oo maahan marka dadkii oo dhan marka la isku bartay maadaama la isla hadlayo groupkii shaqadiisii iyo waxa la galay qaabkii aan xooska ku tagi lahayn ilaa wuxuu waa step markii aad banaanka joogtid iyo markii xooska joogtid laba step oo kala duwan ay kala tahay marka stepay badan waa marka sidii waxaan sameynay anaga aan dadaal u galnay inaan kabtana helno
haddana mataqaanaa aan xooshkii aan mataqaanaa aan tagno oo nala geeyo xooshkan noo qaad aan dhahno challenge badan oo soo ka jiray marka mataqaanaa Algeria ka jiray ayaan u galnay tabtii aan u dhabar adeegnay sidii wax ku socdeen marka kabtanadii markii aan helnay bacdeen aan waxaan galnay xooshkii muuse marka aan tagnay waxaan tagnay saan jeclahay bishii labaad dhammaadkeeda weli maalmihii ugu dambeeyay bishii labaad ayaan xooshka muuse tagnay markii aan tagnay anaga meesha marka waxaan ku kulanay kabtana liidaro kaleeto oo tiimam kaleeto kaligeen ma tegin meesha waxaa joogay meesha tiimam kaleeto oo aan ka xasuusto tiim cabdifataax la dhaho oo cabdifataax carabkii kuwaad maahan laakiin waa tiim kaleeto cabdifataax la dhaho yar oo dhulbaanta xagga laascaanood kasoo jeedo oo leader u ahay iyo tiim kaleeto tiim baana la dhaho oo tiim baana yar baana dhacsada la dhaho oo reer koonfur ahay marka meesha waxaan ku joognay 3 tiim aan ku joognay meeshaan joognay waxaa la soo gaaray marka xilligii lacag bixinta la soo gaaray sida caadiga ah xooshkaas muuse waxaa lagu bixiyaa lacagta doonta aan lagu bixiyaa marka waxaa dhacday ninkii qaasima markii soo hadlo dhaho xilligii lacagta la bixinayo waaye xooshkaasna waxaa looga baxaa markii xoosh baxarka tiim xoosh baxar ku jiray markuu badda galo oo ka baxo oo boos oo banaanaado xoosh baxarka oo boos ka banaanaado laga baxaa meeshan mataqaanaa xooshkan oo muuse u haysto marka sidii aan dhacday xoosh baxarkii boos ka banaanaaday marka waxaa la dhahaa lacagaha la dirsado tiimamka meesha wada joogay tiim baana tiim cabdifataax iyo tiim sayidka oo tiimkeena ahay sidii ayaa dhacday marka sida qaabka lacagta loo dirana waxa weeye waa qofka leaderka ah ayaa lacagta lagu wada shubaa oo sida caadiga ah leaderkuna waa qof ka mid ah saa wada ogsoontihiin qof ka mid ah dadka tahriiba ah marka lacagta dadka ay bixinayaan lacag la mid ah ayuu bixinayaa waa kaliya akoonkaas lacagta maadaama dad badan la wada yahay oo dad badan 21 23 24 intay tiimku wada tahaba marka waxaa mataqaanaa waxay adkaanaysaa in qof walba uu u diro ninka qaasim ah marka waa adkaanaysaa marka lacagta tiimka halka mar waxaa lagu aruurinaa leaderkaas u diraya marka maadaama aniga waqtigii lacagta aan dirnay waxay ahayd bishii koowaad waxaan dirnay kowdii bishii saddexaad 2025 ayaan dirnay maalinimo xilligii galabta 8 saac 9 saac xilligaas ayaan dirnay marka lacagtii markii la aruuriyay keligii horta lacagta lama dirno waxa maadaama aniga la furmuud aan watay dhalinyaro badan oo mataqaanaa kasoo jeedo dhanka Puntland ilaa iyo maxaa ku dhahaa Laascaanood kasoo jeedo oo nambaradu ay kala duwan yihiin anaga reer koonfurdan nahay waxaan isticmaalnaa hormuud isticmaalnaa marka ayagana waxay isticmaalaan simikaare kaleeto oo golis iyo nambaro kaleeto isticmaalaan marka transaction-ka doo dhacay xitaa waxaa jira lacago mataqaanaa oo qadma oo ka go'aysa marka qaar waxa laga yaabaa inay isku dhicin marka waxaa jiray yar oo tiimka ku xigeenka ahay oo tiim leader ku xigeenka ahay haddana nool magaciisana la yiraahdo Maxamed Jaamac dhaho oo hadda Yurub ila jooga ayaa waxaa dhacday wixii mataqaanaa xagga kasoo jeedo intii aan ii diri kartay oo khidmadii mataqaanaa qoortay oo khidmadii bankiga ama mataqaanaa hormuud iyo nambarka kale golis ama nambarka kale ha noqdo qofkii intii qoortay oo ani soo dirtay ani ii direen wixii kale reer hormuudna ani ii direen wixii kale tan nambarkaas kale ku direen marka waxaan isleeyahay labada nambar hadii loo kala diro ninkan loo diro aniga wixii ii diri karo lacagta lagu boobsiyo sida loo fasaa lacagta sidii aan dhacday qaar ninkaas lagu diray qaarna ana la diray markii aniga marka waxaan diray markii ugu horeysay lacagta 5 mar waxaan diray lacag ku dhow 9,000 oo min 5 mar aan diray waa lacag 45,000 ah markaan diray 5 mar markaan diray lacagta waxay limitkii maadaama akoonkayga akoon cusub oo ahay oo akoonkayga waa dareemi kartaa akoon lacag hore u mari jirta maaha lacag waaweyn ee marta maahan marka 5 mar markii aan diray lacag 9,000 markaan diray lacagtii limitkii maalinkii dheer limitkii ayaa go'ay hal mar waxay noqonaysaa inaad sugtid xilliga saacadda isbedelayso macnaha maalinkaas lacagta aad diri lahayd oo bankiga waqtigeeda waa dhammaaday camal waa inaad sugtaa maalin kaleeto marka waxaan sugnay maadaama galab 9 saac ay ahayd habeenkii 6 saac habeenimo yaad u dirta lacagtaas 9,000 oo 5 mara saa ku sheegay qaasim u dirnay qaasim akoonka soo dirsaday akoon markuu qaasim soo dirsaday akoonkaas lagu shubaa waan si wax mataqaanaa la wada ogsoon yahay reer Algeria wada ogsoon yihiin wixii Algeria maray way ogsoon yihiin marka tabtii aan sameynay akoonkii qaasim oo soo diray aan lacagta ku dirnay
transactionkii iyo mataqaana wixii caddeentay wixii waa haysanaa oo weli hadda waa haysanaa. Marka lacagta markaa diraan limitkii iga go'ay. Marka waxaan sameynay yaa kale hormuud isticmaalaan dhahnay oo ninka yarka kale taan waxaan dhahnay marka lacagta aad markaaga dir. Wiilkii marka waa diri waayay lacagtiisa asaga oo u bixi weysay. Marka waxaa la sameeyay ninkii waxaa lagu diray yarka kale taa dadkii kale too dhinay waxaa sameeyeen lagu diray yar kale too dhintay Allah u naxariistay oo magaciisa la yiraahdo Cabdullaahi Maxamed Cali oo dhahay akoonkiisa waxaa lagu diray lacag lagu diray. Marka asaga marka wuxuu diray 2 mar oo min $9,000 ah lacag 18,000 ayuu diray. Marka habeenkaas galabkaas waxaan dirnay lacag gaaraysa 63,000 ayaan dirnay. Marka 63,000 markaan dirnay waxaan sugnay marka xilliga waqtiga iskala bedelayso oo 6 saac habeenimo ama 12 habeenimo dadka si u yaqaanaan reer waqooyi 12kii dhahan reer koonfurkana 6 saac habeenimo dhahan markii saacada iskala bedesho. Markii saacada iskala bedeshana waxaan dirnay lacag oo 3 mar akoonkayga waxaan ka diray min $9,000 ka diray waana lacag gaaraysa 27,000 lacag gaaraysa. Marka waxaan ku diray akoonka oo Qaasim dirsaday. Marka labaad waxaan diray 2,000 oo سيد علي تليفونك سوق القليه total يا تليفونك سوق القليه ما تلافين فيرنا ما المقلة هذا ما مقلة هذا لو مقليه كسو علي انت الدنبه habeenkii markii saacada isbedeshay waxaan dirnay 3 mar taleefkii waxaan ka diray lacag min 3 mar oo min $9,000 ah waana lacag u dhiganta 27,000 aywa. mar kale waxaan diray 2,000 ayaan diray nambarkiisaan ku diray. Mar kalena waxaan diray 200 nambarkiisa isla akoonkiyaan ku diray. Lacagta wadarta guud aan dirnay oo teamka waxay ahayd $92,200 ayaan habeenka meesha ku dirnay. Markii aan dirnay markii aan joogno maalmo waxaan loo wareejiyay oo maadaama xooshkii lacagta markaa bixisay xoosh kale lagu wareejinayo oo ninka carabka oo maamulo xooshka ninka carabka oo maamulo. Marka xooshkan waxaa ka bixaysa xooshkii ninkii odaga ahay mala maqlaya waa lagu maqlayaa. markaan waxaan ka baxnay xooshkii Muuse oo ninkii Muuse oo maamulayay oo Qaasim mataqaana aan ka baxnay. waxaan aadaynaa markaan loo wadaa xooshkii Abu Saar oo ninka carabka oo maamulo. weliba Abu Saar markii Abu Saar waa madaxa koreeto laakiin Abu Saar waxaa la shaqeysa niman kale oo carab ah la shaqeeya. Marka xoosh kamid ah la geeyay oo meel magaceeda location marka guud markaan fiirinay magaceeda la dhaho oo Litfied aan lahaa waxay jirtaa dhankaas iyo Bomadaas ay jirtaa. marka meeshaas aan la geeyay waa xilligii bishii 3aad markii lagu guda jiray. marka meeshaan safar ku suganaynay waa joognay maalmo badan safar marar qaar safar mataqaana anoo gal rabnaa waxa mataqaana la dhahaa maxaa weatherka laasim waxa ay qofka markii badda fuulayso marka kood waxa la fiirinaa weatherka la fiirinaa 3 ugu yaraan 3 bari oo nadiif ah kartaa siday mataqaana malada ay tahay 3 bari oo isku xigto weatherka oo nadiif yahay haddii la helo marka waxa waaye in macnaha checkpointiyaasha meesha u dhow ama mataqaana ama boolis ama meesha oo mataqaana aysan ka jirin wax mataqaana boolis mataqaana shaqo boolis meesha ay ka jirin ila meesha ay ka saarayaan muhiimadu waxa waaye meesha ay ka saarayaan inaysan ka jirin wax mataqaana shaqo oo boolis uu ka qabanayo ama bad hadday noqoto ama meel kale hadday noqoto. marka sidii aa dhacday marar badan mataqaana anoo isdhahno waan la saaraa aan mataqaana la dhahay safarku waa baaqday sidii Ramadaankii noogu soo dhashay Ramadaanka meesha ku joognay. marka Ramadaankii marka meesha aan joognay waxaa dhacday dee waa dareemi kartaa dhalinyaro intaa mataqaana xoosh ku jirtay weliba xoosh baxar ah dee xooshkana wax laga cuno aad dareemi kartid dee ninku waa nin carab ah nin Soomaaliya maaha inaa isku aftaqaanin maaha inkastoo anaga aan waxaan kula hadlayna ay ahayd luqadda carabiga luqadda carabiga fasaxda ah. Algeria waxa looga hadlana waa lahjo ama wadamada carabta ama Algeria ama Libya ama Tunisia ama Morocco waxay noqoto
lahja waxa la dhahaa looga hadlaa oo ayaga u gooni ah marka anagana Soomaali hadaan hadee qasatan aniga luqadda fusxada ayaan wax ka fahmayay marka waad dareemi kartaa marka anaga inta aan awoodnay oo mataqaanaa wax weydiisanaynay marka qaar biyaha weydiisanay marka qaar badarka weydiisanaysaa marka qaar ninka carabka wacaysaa boontiga kala hadlaysina waxa waaye waa safarka weydiinaysaa safarkeena goormo waa dhehaysaa wax kaliya aan mataqaan iska wareysan jirin intaa waayba ninka carabka iska mataqaan janisaas ku siineen wax ka wareysanaysaa safarkeena goormo waaye maxaa ku dhahay biyo rabnaa badar rabnaa waa intaa kaliya wassalaamu calaykum marka waxa dhacday meeshii marka Soomaali dareemi kartaa dhalinyarta meeshii waa lagu wada caajisay meeshii la wada joogay waliba xooshku wuxuu ahay meel mataqaanaa guri oo dabaq ah oo mataqaanaa qabyo ah oo mataqaanaa masquul lahayn qofku markuu xaajo u rabo inuu gutana meesha hoose u soo degayo qaybta hoose mataqaanaa basementiga dabaqa ah meeshaas mataqaanaa wixii iska gudanayo hawshiisa bacdina iska soo fuulay kor oo qaybta kor aan degnin marka sidii dhacday dhalinyarta meesha waa lagu caajisay dhamaantina ku wada caajisnay marka meeshan cunto la'aan lagu haysay oo marka qaar rooti lagu keenaa marka qaar adeeg waa dhamaana markii adeega marka ku keenaan adeegaas waxay kugu talagalayaan maalmo inaad isticmaashid waa dareemi kartaa dhalinyarta qaar markay wax sameynayaan in 2 mar 3 mar wax la karsado adeegina sidoo ku dhamaado marka rooti lagu keenaa rootigii iyo biyihii yarka ah biyo caadiga caafiga caadiga ah aad ku caawiyaysaa ama biyo caadi kusoo waxaynayaano waxaa noo dhawaay nin meeshan ugu mataqaanaa joogi jiray gurigiisa noo dhawaay marka habeenkii markii gaaro qoraxda dhacdo oo dadku inta badan wax la wada arkeen ayuu wuxuu keeni jiray dariskiisa wuxuu arkeen dariskiisa seesan u arkin habeenkii markuu isku soo aadinaa wuxuu noo keeni jiray biyaha yarka oo tubo noo soo xiriir jiray meeshan biyana ka dhaansan jirnay meeshan joogno marka meeshii noloshii marka lagu caajisay maxaa yeelay maanta dhan ayaantaas oo dhan waxaa joognay xooshkaas ku jirnay ramadaankii ku soo nameysay ramadaanka ku afurnay haddana mataqaanaa safar badan naga baaqdeen dhalinyarta buuqeynay waxayna iska batay dariskii xitaa waxa la sameyn jiray marka qaar dhalinyarta qaar waxay ay jireen habeenkii markay tahay korkaas koreeto dabaqa qaybta kore dabaqa ka fadhiisanayaan marka qaar nal iska daaran jireen marka dariskii after noloshii xooshka waa fahnay concept guud markii kor aan ka fiirno waa fahnay nolosha xooska hal mar ka dhamaado meega hal mar meega aan ka dhamaado hal marka dhalinyarta qaar waxay sameeyeen nalal meelaha ku qaar nalal dardaareen qaylada iska badatay marka dariskii wixii marka ninkan u soo dacwoodayo ninkii wuxuu dhahay waa nal ogaaday ninkii carabka la hadlay ninka carabka markuu wuxuu dhahay meeshaan ku sii hay karo saasoo maadaama anaga dadku reer Algeria waa taqaanaa ninka mataqaanaa carabka ku haya adduunka waxa ugu neceb yahay in lagu arko haddii lagu arko oo dariska uu dacweeyo nin madow la socda ama nin ilmo haya ama dad haya ama tahriibiyaal haya ninka waa la qabanaa xabsi toos u tagaade xabsigoodana xabsi dheer waa marka wuxuu iska ilaalinaa mataqaanaa in booliska lagu dacweeyo ninkii la hadlo wuxuu dhaaniyo inta hay karaan waa hay saas waa ma sii hay karo ninkii kaleeto oo ninka carabka u xil saaray ayaa meeshii kaleeto xoosh kaleeto banaanaaday oo xeebta u dhow ayaa nagu wareejiyay meeshii aan 2 bari ku jirnay marka ayaan anagu ku jirnay 2 bari ama 3 bari anoo meesha ku jirnay waxaa dhacday teamka dad kamid ah ayaa waxay dhaheen waxaan aadaynaa banaanka aadaynaa hoteelada aadaynaa waa soo jawaab bedelinayna dad qaar waxay dhaheen waa xanuunsanahay wiil xanuunsanna waa nagu jiray oo mataqaanaa xanuun u baahnay kaniiniyaal wax daawoweyn inaan soo gato sidii ku dhacday marka waxay dhaheen waa bixaynaa marka maadaama ay jeclaystay inay baxaan waxaa ninka carabka wax kale wuxuu ku leeyahay waa inaa baxsataa taksiga lacagta taksiga waa inaa baxsataa bacdeen markii aad soo dhamaysidna waa ku soo celinaa tabtaas waa la hadalnay dadkaan noo qaadaan dhahnay bacdeenna ninkaan markii waxay soo dhamaystaan markay soo dhamaystaan 2 habeen ama hal habeen waxay noqotaba markay soo laabtaan la soo celiyo ilaa teamka kamid yihiin safka wada galeyna marka dadka meesha ka baxay waxay ahaayeen 3 gabdhood iyo 3 wiil oo wiil xanuunsan iyo wiil kale caawinay iyo wiil kale gabar la socday iyo 2 gabdhood oo kaleeto sidii ku bixeen habeenkii markii hotelka ay jiifteen maalinkeedii boolis soo daatay oo boolis dadka qabta oo magacooda la yiraahdo darqo wadan ayaa u daatay sidii lagu qabtay sidii noogu soo sheegeen bacdeen markii dadku inta badan waa maqleen team sida dad laga qabtay markii warkii askari saydo mikrofoonka u soo dhawow codkaaga meel dheer waa
soo dhawow mikrofoonka hal mar ama mud galoo ka soo bax waa dareemaya qolka ku jirta eekoa soo laabanayso marka derbiyada codkaaga uu ku dhacaya marka waxaa samaysaa mikrofoonka u soo dhawow si codka loo maqlo adoo mahadsan anaa taleefon kale ka fiiriyey ninkaa codkiisa waa caadi dadka taleefonkiina dheereeya dhanne dadka haysana waan taleefonkay kalan ka fiiriyey markaa mud ku jira qolka koon kalan kasoo gala waa dhegeysanay waa caadi sii wada sheekada marka warkii isgaaray oo team seed dad laga qabtay marka sidii warkii u gaaray anaga nagu soo gaaray qaasim iyo ninkii abu sahra dadkii ku gaareen marka waxa dhacday markii dadkii la xiray oo meeshii saldhiga markii loo sii waday oo saldhiga la geeyay ayaa wiil xanuunsanaya ku jiray oo magaciisa la yiraahdo Maasim wiilka markii meesha la geeyay wiilka aad buu xanuunsanayay raggii waxa dhacday Algeeriyaanki askartii qabatay inay iska soo fasaxaan marka isbitaal waxa u baahan oo dhahay inay iska soo fasaxaan marka iska soo fasaxaan anaga sidii nagu soo waco anaga marka filim weyn uu noqoto dadkii la qabtay oo la soo daayay filim weyn uu noqoto war ma maxaa joogtaa video call for waa fiiran markaas war banaanka jooga taxi la soo diray sidii aniga carabka ula hadalnay oo taxi loo soo diray anaga noo keenay marka xooshkii lagu soo celiyay marka halkaas wiilaa soo laabtay shantii kale tana waa la xiray marka waxa dhacday isla habeenkii in mataqaanaa lagu soo daro teamka 5 qof oo cusub lagu soo daro 4 wiil iyo hal gabar lagu soo daro oo waliba uu soo daro ninka Qaasim marka markii lagu soo daray dadka cusub magacadoodii hadaan sheego laakiin gadaal ka sheega dhimalaan marka santaas qof mataqaan lagu soo daray bacdeen meesha lagu joogay laba habeen kadib waxa dhacday xilligii safarka aan loo sheegay marka maqribkan loo sheegay safar jira la cawda anaga de marka maadaama markastana la jiray safar jira oo safarka naga baaqan jiray 100% show ma ahayn waa is diyaarin laakiin 100% laakiin show ma ahayn oo wax hubo ma ahayn de sina waa isdheheen waa la baxaya sina waa isdheheen de mataqaana laba lagu jirta de waa la baxaya ma la baxaya markii dambeeto maqrib markii la gaaray xilligii 2 saac 3 saac markay tahay ayaa mataqaana ninkii baas wuxuu noo keenay baasto waxaasan loo keenay marka horta wax dalbado dhahay wixii lacag ah haystid wixii qofka ku dalba ka saadi wixii ku dalba kara iyo wixii timir iyo waxa iskor wixii rabto ku dalba karto sida loo dalbaday marka tabtiya dhacday xilligii markay tahay 4 saac markay tahay ayaa gurigana laga qaaday aniga oo gaariyaan la keenay gaari oo qamaan la keenay gaarigaas sidana lagu qaaday bacdeen gaarigii cabaar ee soo socday waxaan la geeyay meel xeeb ah meeshii xeebta markii la geeyay oo doon ku diyaarsan tahay xeebta inta waliba xeebta wuxuu ku taalay boomadaas waa meel mataqaana laami u dhow oo laamiga marka gaariga saas mataqaana loo soo istaajiyo lagu leeyahay soco lagu dhaaf fiisa lagu dhaaf boobsi sidii mataqaana isku boobsi marka anaga intaan soo bixin kor waxaan ku tishanaynaba waxyaabo badan inta badan dadku waxay sameeyaan oo dhaho hebelo wax la isku xeel qaamo hebelo adiga waxa waa mataqaana shidaalka qaad hebelo qofka xanuunsan garabsi hebelo adiga cuntada hay hebelo gabdhaha adiga saar gabdhaha loo hor saaro baleen aan kusoo tashanade laakiin baleenkaas oo fursad laakiin noloma siinin saa malaysanayna iyo sidii noqotay kaafi kala dheeriya la socda mataqaana niman carab oo mataqaana badan la socda kuwado mataqaana wado alaabtii mataqaana shidaalka wax ka saaraya iyo kuwa kale to mataqaana jaakadihii iyo wixii wada kuwa qaar mataqaana biyaha rag dad kamid ah mataqaana team kala socda qaar lagu xamaalay sidii aan loo saaray xitaa dadku waxa loo saarayay sidii lor breeze camal inta saas inta loo qabtaa qofka adoonta lagu tuuray xitaa marka qaar aniga xitaa anigii oo ugu dambeeyay markaan soo degay oo carabka dhahay ninkii wuxuu carabka hadal ugu dambeeyay dhahay waxay ahayd wasal bisalaama nabad ku tag macnaha wasal bisalaama waa carabi laakiin af Soomaali waxay noqonaysaa nabad ku tag way markii hadalka af ka sii baxay oo aan mid intii la kaco wuxuu ugu toori doonti daaq si lor breeze camal hal mar isaar soo meeshii ugu toori marka dadka inta badan saas loo saaray boobsiiskaas lagu saaray lagu tuuriyay marka tabtiya lagu saaray meesha anaga wixii aawadanay oo saad iyo biyo iyo wixii aawadanay iyo wixii ayagana siinayeen maadaama doonta lagu tuuriyay nimanka carabta doonta ku tuuriyeen anagana xoog lagu saaray waxa meesha qasaare yarana soo gaartay oo ah in biyihii iyo wixii mataqaanaa buskudkii iyo keeki waxyaabihii qaar aan wadanay
in dadkii ay kusoo istaageen iyo biyihii badda iyo baasinkii wax ku daadaa wixii inay isku qasmaan oo mataqaanti marka dadkii dhacday doontii waa isnadaa markaas marka biyihii ku dhex jirno doontii nin carabaa kiciyey nin carab markuu shilreeyey xabaar markuu dhaqaajiyey oo kasoo booday bacdeen ninkii waxaa loo dhiibay kabtankii koowaada loo dhiibay asaal dhaha qabso waxyaabo qarqaraa ka baxsan oo fiilo ka baxday iyo baasha bumbada oo shidaalka fiilada soo qaadayso motor ku xiraysay waxyaabo baxsan oo hagaajistay sidii aan mataqaanaa tawakkaltu cala allah ku dhahnay sidii aan badda ku galnay habeenkii waqtigana wuxuu ahay 5 saac habeenimo oo reer waqooyina u yaqaanaan 11kii habeenimo reer koonfurkan u yaqaanaan 5 saac habeenimo sidii aan badda ku galnay habeenkii sidii aan ku soconay marka habeenkii sidii markaan ku soconay oo doonta aad iyo aad u dheereynayso si fiican xawaare fiican ku socoto ayaan mataqaanaa biyihii Algeria ama waxa ka baxnay xilli dambe oo noo sheega oo qoraxda sii dhaceysay habeenkaas dhan waan soconay xilli dambe oo mataqaanaa qoraxda soo bixayso iftiinka waagi markuu soo baryayo aan biyaha Algeria ka baxnay markaan ka baxnay sidii uu noo sheegay subaxii markii qoraxda soo baxday wuxuu dhahay jaakadiina waa xiran kartiin camal meeshii farxad ka bilaabatay oo mataqaanaa iyo dabaaldeg ka bilaawday jaakadaha xirnay taleefanaha la soo kala baxnay maadaama internationalka oo badweynta aan dhex taaganahay oo biyaha Algeria aan ka soo baxnay marba aniga niyad waxaa nagu jirtay marba hadaa biyaha Algeria ka soo baxdeen dee wasalatiin sida caadiga dadku oo aaminsan yihiin markii aad banaanka aad joogtid Algeria dee waxaa dhib badan doonta waxaa laga yaabaa inta gasho isla markii Algeria mataqaanaa askarta Algeria soo qabto ayadoo daqiiqado ku jirin nus saac ayadoo ku jirtin in la soo qabto marka taas iska dhib badneed marka aniga dadku markii waxay aaminsan yihiin mar hadda internationalka gaartid dee wasalaaba tahaba bas tabtii oo kale maadaama aniga aan ahayn dad mataqaanaa cusub oo wadanka dee 2 bilood ama wax mataqaanaa 2 bilood baraka joogay oo inta xoos ku jiray oo anaga dhan inta badan hal qof ma ahan inta badan